maanta waxaan ka sheekeynaya haddii ilaahay yidhaahdo ramadaanka qaybihiisa kala duwan qayb ka mid ah oo aan u bixiyey ramadaanka iyo guulihii muslimiintu ay gaareen. ramadaan waa shahru intisaaraat. walaalayaal, qofka la jecel yahay ama waxa la jecel yahay waa loo magacyo badiyaa. ramadaanku magacyo badan buu leeyahay. soomaalidu inta badan soon iyo ramadaan u bay yaqaanaan, soom iyo ramadaan. ramadaanka magaciisa waxaa ka mid ah shahru lintisaaraat, bishii guulaha, shahru raxma, shahru cidqu min annaar, wa shahru sabri, wa shahru lmakfira. shahru raxma lama koobi karo. maanta marka waxaan waxyar ka sheekeynaya haddii ilaahay yidhaahdo shahru intisaaraat, bisha ramadaan guulihii muslimiintu ay gaareen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu cadowgoodii uu guusha ka siiyey. taariikhahaas ramadaan dhexdiisa dhacay ayaan wax yar oo kooban ka sheegaya haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan ku bilaabayaa marka koowaad ramadaan guulihii muslimiintu ay gaareen, dagaalkii beder oo aad taqaanaan oo qof kastoo annaga nagamida uu yaqaano. dagaalkii ugu horreeyey gaal iyo muslin ka dhacay ah dhulka maaragtay rasuulkan alay slatu salaam uu hogaaminayey gaswatu beder alkubraa. waa dagaalkii kala saaray xaqa iyo baadilka, gaalana qurayshna u quusiyey. dagaalkaas wuxuu dhacay 17 ramadaan sanadkii labaad ee hijriyada. waxaa kaloo isla ramadaan dagaal muslimiintii gaalada dhex maray ilaahay subxaanahu wa tacaala uu guulo ka siiyey. dagaalo badan oon la koobi karin. fatxu makoo kale waxay dhacday 20 ramadaan sanadkii 8aad ee hijriga. maka waxaa la furtay 20 ramadaan sanadkii 8aad. waxaa kaloo ayadan ramadaan muslimiintu guulo badan ay heleen bishii ramadaan 6deedii 223 markay ahayd ayaa magaalo la yidhaahdo camuuriya, fatxu camuuriya magaalo la yidhaahdo. waa dhulkan waxaan u malaynayaa suuriya iyo turkiga inay hadda turkiga xisaabsan tahay, inuu syriya ma aqaano. dhulkaas romaanka ka talin jiray nimanka la yihahdo bisantiyiin ayaa ka talin jiray. bisantiyiintii marka way ka carareen. dhulkaas ayaa muslimiintu waxay furteen 6dii ramadaan 223 waxayna arrintaasi ku dhacday oo furashadaa keenay gabar muslimada ah ayaa muxuu ahaa dhib lagu gaarsiiyey markii la dhibay. oo riwaayadka qaarna waxay yihahdeen waa la qafaashay oo niman bisantiyiinaha yimid oo ciidan badana, gabdho muslimiina iyo dad marasa maata ayay afduubteen. dadkaasay ka mid ahayd. markaas waxay tiri waa muctasima macnaheedu waxay tahay alla muctasim billaah. waa khaliifkii marka dowla alcabaasiya hogaaminayay sanadka 223 ninkii khaliifkii muslimiinta waay. markaasi u dhawaaqday ay tiri waa muctasima, alla muctasimow, muctasim meesha ma jooga miya? hadal saas oo kalea. bartaas ayuu ciidan ka soo kiciyey aad u badan 10 kun ah. waxayna sababtay magaalada camuuriye la yihahdo inay muslimiinta gacanta ku dhigaan. markay hareerayeen kadibna ay furteen. hal gabar oo qaylisay ayaa saa loogu danqaday. ka maanta gabdha muslimiina adduunka ku silicsan ama dad marasoo muslimiina, falastiin baa kuugu filan 30 kun geeridooda ay maray oo dumar iyo caruur 85% la yidhi waa dumar iyo caruur. aawa xuquuqul insaanka beenta ay sheegayaan, aawa gaaladii. war gaalo iyo maraykan ugu weyn yahay ma falastiin kadib baa warkooda la ruusanayaa? war bilalah idinku dhaariye 32 kun mase 31 kun bay marayaan. markaasaan wax u danqanaya la arag. almuctasim billaahna gabadhaas waa muctasimaah tiri ayuu dhowr iyo intaasoo ciidan 10 kun ayuu ku bixiyey. cagta ayuuna mariyey. marka 6da ramadaan bay ahayd. waxa kaloo ayadana la yidhaahdaa macrakatu bilaad الshuhadaa. waxay ahayd muslimiintu markay andalus qabsadeen markiiba waxay weerareen koonfurta faransiiska. dagaal xoog le ayaa dhex maray meel la yihahdo jibaal baranis oo faransiiska iyo sbain u dhexeeyey. sbain o dhan waa la qabtay. yurub oo dhan, yurubta waqooyi oo dhan ama yurubta galbeed oo dhan bay rabeen inay qabsadaan muslimiintu. nin la yihahdo cabdiraxmaan alghafiqi ayaa hogaaminayey. dagaalkaas khalad ay galeen muslimiintu guuldarada ilaahay baa keenay iyo guushabe
ayay sababsadeen oo waa taariikh dheer oon hadda meesha lagaga sheekey karin. dagaalkaas waxaa la yidhahdaa macrakatu bilaadu shuhadaa ayaa la yidhaahdaa. muslimiintu marka hore iyagaa jebiyey, khaniimadii ku mashquuleen sida dagaalkii uxud, kadib waa laga adkaaday, waa la jebiyey, marka halka ayay ku jabeen. waxayd 479 hijriyada ayay ahayd, ramadaan bay laakiin maalintii lama hayo, laakiin inay ramadaan ahayd unbaa kutub taariikhda kusoo waxaan dhihi lahaa cafwan macrakatu bilaad shuhadaa waxay ahayd ramadaan 114 ayaan dhihi lahaa ayay ahayd. waxa kale oo ayadan ramadaan muslimiintu ilaahay guulo siiyey fatxul andalus. waa la isku khilaafaa mu'ariqiintu, laakiin rag badan oo mu'ariqiin ayaa waxay raajicinayaan inay ramadaan ahayd. qaad rajab bay yidhaahdeen 92 hijriyada ayay ahayd ramadaan riwaayadka qaarna waxay yidhahdeen ramadaan maahin rajab ayay ahayd. fatxul buwayb waxaa la yidhaahdaa meel magaalada kuufa la yidhaha u dhow oo nimankii la dhihi jiray dowladdii Iran oo la dhihi jiray dowla faris Persian ay haysteen dhulkan Ciraaq. dowladda Iran ayaa haysatay oo waxay hadda uga tegi laayihiin oo muddo dheer gumaysanayey. ciidanka muslimiinta oo Muthana ibn al-Harith uu hogaaminayey iyo ayaga dagaal halkaa ku dhex maray, cagta ayaa la mariyey, jab aan la arag oo la maqal ayaa ku dhacay oo meesha ka raacay. 13 waxay ahayd hijriyada, ramadaan bay ahayd, maalmaha ramadaan lama hayo. fatxul buwayba waxay ahayd waxay ahayd nuuba meesha la marka la furtay dhulka u dhexeeya suudaan iyo masar. dhulkaasa waxaa ku yiilay boqortooye la yihahdo nuuba, dhulkaasoo dhan ay ka talinaysay. waxaa la furtay 31 hijriyadii. macrakatu caynuljaluut oo taariikh macraka kala saarta gaaladii iyo muslimiinta, tataarkana lagu jebiyey, ayaduna waxay dhacday 25 ramadaan 658 hijriyada ayay ahayd. 25 ramadaan 658 waxaa lagu jebiyey nimankii la dhihi jiray tataarka oo Ciraaq iyo Shaam cagta soo mariyey. ciidanka muslimiintana marka waxaa nin la yidhaahdo sayfudiin quds ayaa markaa watay. ilaahay subxaanaه watacaala guushi ayuu muslimiinta siiyey, tataarkiina waa la jebiyey. kadibna jabkooda ayaa israac raacay. caalamulislaamna waa kasii yaryaraaday ilaa marka dambena ay ka suuleen. marka dagaalkaas saasuu ahaa, dagaal taariikhla ayuu ahaa. waxa kaloo dagaalada hadda la xuso ugu dambeeyey, ilaahay subxaanaه watacaala uu guul siiyey ciidankii masaarida, waxayna ka adkaadeen dowladdii yuhuudda. dagaalkii 1973 isna ramadaan buu ahaa. marka ramadaan waxa loogu aadiyey futuuxaas waxay ahayd in dadka muslimiinta aysan bishan kaliya u fahmin inay tahay bil cunitaan iyo cabitaan iyo in layska seexdo maalintii muxuu ahaa waxyaaba laysku madadaaliyo habeenkana la jiifto ma aha. ramadaanku waa bil cibaado, waa bil caafimaad, waa bil la raba inaad cuntada yaraysato oo aad dareento gaajadaasoo si markaas aad ugu naxariiso dadka kaleo muslimiinta ducafada oo masaakiinta oon waxba haysan. marka ka warama ninka ramadaan jihaaday ama raba inuu jihaado ma sinaanayaan iyo ninka raba laadhuu iyo turub iyo idaacado iyo kanaalaad iyo waxyaabo lamid iyo Facebook iyo waxyaaba hadda la isticmaalo oo bedelay turubkii iyo laadhuudii. inta badan aaladan hadda la isticmaalo waqti badan ku lumiyey ma siman yihiin, waa maya. marka dagaaladaas waxay ahaayeen dagaalo maaragtay muslimiintu niyadooda ay ku dhisteen, waxayna ku aadeen ramadaan. ramadaanka marka camalka la qabto camalada kale waa ka fadli iyo ajar badan yahay. lanna ilaahi subxaanaه watacaala waa bisha uu yidhi asawmu lii wa ana ajsi bihi. soonka eeg bisha ramadaan waa bil qiimo badan, waa bisha qur-aanka ilaahay soo dejiyey, kutubta samaawigaah dhanna ilaahay waa bisha uu soo dejiyey. ilaahay markuu ramadaanka ka hadlaya wuxuu yidhi wa an tasuumuu khayru lakum, inaad soontaan baa idiin wanaagsan. shahru ramadaan aladii unzila fiihi اlqur'aan. marka waa bil qiimo badan. fatxul andalus markaan wax yar oo aan ka faalleeyo, andalus waa dhulka Spain la yidhahdo. muslimiintu 800 sano ayay ka talinayeen. 92 hijriyada ayaana la furtay. nin la yidhahdo daariq ibnu siyaad, kadibna 800 sano ayay ka talinayeen. markay furanayeen sida mu'ariqiintu xataa reer galbeedka ay sheegeen, carab markay furanayeen dhulka, carab
iyo berber bay wada ahaayeen dad yowma muslimiin oo qabaa'ilo ah markay jabayeenna berber iyo carabti ayaa marka qaxdaaniyiin iyo cadnaaniyiin isu kala saaray berberka ayaa qabaa'ilo isu kala saaray qowmiyadihii iyo qabyaaladii marka hore islaamku uu ka xoreeyey markay carabi ku laabteen oy andalus sifaadka ay ku joogeen oo ah islaamnimo ay ku furtay markay ka tageen ayagoo dulaysan oo ninka la dhihi jiray cabdiraxmaan ninka ugu dambeeyey oo ibnu saqiir miyuu ahaa wax noocaasa ee hooyadii tiri furaha mureji markii la yidhi hooyadii ay ku tiri xukun sidii ragga aad u difaaca weyso sidii dumarka u ooyin wareeji bay tiri adigaa sidii ragga u difaaca waaye ninkaas oo wuxuu ahaa meesha ugu dambeeyey qarnaada suquuda qarnaada markii laga faramaroojinayey waxaana markaa midoobay boqorkii labadii boqor oo ninkii naagta kale ahaa oo wadanka la yidhaha Portugal iyo Spain ka talinaya ayaa muslimiinta u midoobay hal xukun ay sameeyeen weliba way isguursadeen baa la yidhi muslimiintana cagta ayay mariyeen taariikhda muslimiintu markaas intaa fadxi ilaahay uu siinayay guulo waxay ku guulaysanayeen waxay ahayd kelimatul islaam ayay wateen calankooda laa ilaaha illa allah ayuu ahaa iyo inay kelimadda ilaahay kor yeelaan markay ka tageenna waad aragteen annagoo maanta taagan oo nool oo 2024 bishii maarso oon soo marnahay ayaa walaalahayga falastiin sidaa loo gelayaa 100 milyan oo carab ah ayaa daawanaya 2 bilyan oo muslimiin ayaa daawanaya annagoo aan ka mid nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ma garanayo xujo ilaahay hortii ay muslimiintu uga jawaabi doonaan dhibaatada dadyooga muslimiinta haysta gaar ahaan walaalahood Gaza ilaahayow rabbiyow adaa raxmaana waa soomanahay ducadeena rabbiyow naga aqbal ilaahu nasri iyo guulsi marka walaalayaal dhacdooyinkaas sidaas ay ayeen Badar oo kale haddaan wax yar ku noqdo 17 Ramadaan ayuu ahaa labadii hijriyada maka waxaa la furtay 20kii Ramadaan 8 hijriyada camuuriye meesha la yiraahdo oo dhulka hadda u malaynaya Turkiga ku taalo ama kulli xuduud meelaha ku taala oo ninka markii dawlad Byzantine Roomaanku ay soo weerareen gabadhii muslimada ay qafaasheen ee tiri wactasima almuctasim billah oo ah marka khaliifka muslimiintana wuxuu magaalada furtay 6 Ramadaan 223 macrakatu bilaad shuhada balaad shuhadana waxay ahayd 114 Ramadaan fatxul andalus 92 hijriyada ayaa la furtay fatxul buwayb oo furus iyo roomaanku meelihii isku fara saareen ugu daraacay ahayd 13 hijriyada ayay ahayd Ramadaan bay dhacday nuuba meesha la yiraahdo fatxul nuuba waa mamlakatu nuuba oo masar waqooyigeeda ku tiilay 31 hijriyada ayaa la furtay iyadoo Ramadaana macrakatu aynul jaalut oo aad wada taqaano tataarka lagu jabiyey 15 Ramadaan ayay ahayd 658 hijriyada xarbu Oktoobar oo ilaahay ciidankii muslimiinta oo masaarida uu guusha ka siiyey yuhuudda xarbu Oktoobar waxay ahayd Ramadaan bay ahayd Ramadaan barka waa shahrul intisaaraat waa bil qiimo badan waa bishaas la rabo in qof kastoo musliman uu ku dadaalo cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaalaana caabudidiisa uu laabo marka ilaahay camalkeena naga aqbalo inta ayaan maanta ku soo koobaya wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh